السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي آد بعد سلامتين دمانتين halkeenii inaga kasii wadanayna barnaamijkeenii taxanaha ahaa ee isku daweynta dhirta. maanta waxaynu ka hadlaynaa geed aad iyo aad u muhiim ah oo faa'iidooyin badan oo aan la soo koobi karin jirka uu u faa'iida cudurro badanna ka ilaaliya kana hortaga cudurro badanna daweeya cudurradaas oo 90% ku saabsan macdanta caloosha qabsinka magaranaysa xidmaha mindhicirka laab dilaaca iyo cudurro badan oo aynu ka soo hadalay oo bakteeriyadu ay koos garayso ama ay sababto geedkaas ka dawo ah oo magaranaysa ay ku caawiya oo u ah marjac loo isticmaalo in cudurka xididkiisa la daweeyo oo aan caradkiisa la daweyn. geedkan ka hadlayna maanta waa geed loo yaqaano avocado. avocado waa af latini wuxuuna ka yimi wadanka la yiraahdo Mexico. waxaad oranaysaan maxaa hadda loogu xusi waayay quraanka iyo magaranaysaa ugu xusnaan waayay haduuba dahab yahay oo saa u faa'iido badan yahay. waa geedka ugu faa'iidada badan ee jirka siiya antioxidant cudurrada badan ka ilaaliya ee antioxidant-ka ah ee vitamin oo dhammi ku dhan yahay ee muuska ka xoog weyn ee orange-ka ka xoog weyn ee caanaha ka power weyn magaranaysaa ee ugana sahlan jirka si uu u qaato magaranaysaa ugana faa'iido vitaminska kala duwan ee aan haddeerto halkan aynu ku xusi doono iyo fawaa'idkooda kala duwan ee ciidda yarada ka badan. aad iyo aad u faradhagahaaga sida loo isticmaalo maalintiiba inaad avocado ugu yaraan wiigii hal mar ama 2 mar aad cabtid casiirka avocadaha ayaan kugula talinayaa. waxaana sababtu tahay waa sidan. avocaduhu wuxuu ka kooban yahay macaadin aad iyo aad u fara badan iyo vitamino aad iyo fara badan oo faa'iido weyn u ah jirka. waxaana aad iyo aad u muhiim ah avocado geedka avocado la yiraahdaa sonkortiisu way aad bay u yartahay aad iyo aad bay u yartahay 10% ama 20% hadda cirka qabato weeye 77% waa duhun ama magaranaysaa waa dihin mufiid ah. diinka macnaha waxaan ka wadaa waa subag nabaati ah weeye oo mufiid ah oo magaranaysaa u sahlan jirka inuu magaranaysaa uu qaato. waxaana uu ka kooban yahay oo kale oo aad iyo aad u muhiim ah oo hadda ka hor aynu ka hadalay markaanu ka hadalaynay koronaha iyo manaacada jirka difaaca jirka sida loo dalaco iyo cudurrada sida loola dagaalamo. BHT waxaanu ka hadalay oo ku saleysnaa cunsurka loo yaqaano ama macdanka loo yaqaano potassium. avocaduhu waa geedka ugu badan wax allaale wixii ilaahay abuuray ee faakahada ama cuntooyin ah waxa ka kooban yahay potassiumkiisu nisbad caali ah oo waliba ah magaranaysaa nisbad macna tarkiibad sahlan oo uu jirku qaadan karo. potassiumkana saynu ognahay wuxuu cilaaj weyn u yahay balanska keliyaha ayuu haddana ku leeyahay isagoo waxyaabo badan difaaca haddana wuxuu ku leeyahay balanska keliyaha. dadka daqadka qaba uu u balans garaya daqadka waxa loo qoraa tawsiyad ama lagu nasiixadeeyaa haddii aad daqad leedahay pressure haddaad leedahay ama dhiikar haddaad leedahay waa inaad cuntaa maalin walba avocado hal xabo oo avocado waa inaad cuntaa. after a week kadib ayuu dareemayaa isbedelka ku dhacaya jirkiisa qofka magaranaysaa daqad kale ama pressure kale ama dhiikar kale. waxaa kale oo ku jira wuxuu faa'iido u leeyahay beerka wuxuu faa'iido u leeyahay cudurrada stroke la yiraahdo
wuxuu faa'iido u leeyahay balanska ama magaranaysaa isu dheelitirka biyaha kelyaha. wuxuu faa'iido u leeyahay maskaxda iyo waxa nabadka loo yaqaano nabadaadka caqliga ama maskaxda. wuxuu faa'iido u leeyahay magaranaysaa ganaca oo aynu u naqaano oo magaranaysaa soo saara maadada insulinta la yiraahdo ee sonkorta la dagaalanta ama balance garaysa. wuxuu aad iyo aad ugu faa'iido badan yahay dumarka uurka leh oo waayo waxa ku jirta maadadan la yiraahdo folic acid magarta oo waliba uga sahlan tan chemicalka ah ee ay dadka loo qoro dadka naagaha magaranaysaa uurka leh dumarka uurka leh loo qoro. sidaan u ognahay vitaminka ku jira ee la yiraahdo vitamin K ama vitamin E wuxuu aad iyo aad u mufiid u yahay stroke dadka jaldada ku dhacda ama stroke waxa loo yaqaano. waayo vitaminada ku jirta waxa weeye waxa ka buuxa beta carotene oo hada hore ka hadalay oo waliba mubasad ah oo sahlan oo saacida kelyaha. waxa kale oo ka buuxa magnesium, waxa kale oo ka buuxa manganiiska, waxa kale oo ka buuxa zinc, waxa kale oo ka buuxa nuxaas, waxa kale oo ka buuxa vitamin B6 oo isagu stresska qofka ka ilaaliya qofka isku buuqa ee magaranaysaa dhibaatooyinka iyo waxa hadda la kulmaan isku buuqa oo aad u fikira ayuu ka yareeyaa. marka vitamin C baa ku jira oo isaguna manaacada iyo difaaca jirka, anti oxide oo ama antibacteria ah ayaa ku jira. waxaana uu sameeyaa maadadan jirka ama basharada ama maqaarka qofka qurxisa ama magaranaysaa ka ilaalisa jactadka oo isagana ku jirta maadadan la yiraahdo collagen. okay potassiumkaas oo daqadka ilaaliya oo waliba caawiya dadka doonaya inay miisaanka gabdhaha doonaya inay miisaanka iska yareeyaan ama ragga doonaya inay miisaanka iska yareeyo. marka uu cuno afokaaduhu wuxuu ku dareensiiyaa dhirig waayo nisbad caaliya oo aad iyo aad u caali ah oo magaranaysaa extra fat baa ku jira. HDL waxa loo yaqaano waa muhiimta mufiida oo ka soo horjeeda VLDL. VLDL2 waa fat ama waa dihin ama waa subag aan faa'iido u lahayn jirka, laakiin HDL waxa weeye mid faa'iido u leh oo jirka uu buuxisa 400 oo calorie ah ayuu leeyahay. markiiba qofku markuu cuno wuxuu dareemayaa dhirig, sidaa darteedna miisaanka ayuu ridaa. laakiin waxaa jira dad marka ay cunaan afokaadaha aan dhirig dareemin magaratay aan dhirig dareemin qofka cagsi buu ugu shaqeeyaa. haddii uu qof caata yahay afokaaduhu waa lagu naaxaa waayo qofku markaa dareemi maayo magaranaysaa dhirig dareemi maayo calooshiisa ee cunto cunayaa. 400 ee calorie de waa 400 waa caali weeye. waxay u baahan tahay in la gubo oo la ordo oo la socdo, marka cagsi buu shaqeynaya. laakiin qofka aan marka uu cabo dareema inuu dhergay qofkaas miisaankiisa uu dajiyaa. waa in saa loo socdo, waa inuu ilaaliyaa calciumka potassiumkan ka wada macnaha potassiumka qofka dhibaato badan ku leh ama kelyaha ka dacwoonaya waa inuu dhakhtarka raajiciya intaan isticmaalin afokaadaha. okay afokaaduhu waxaanu sidaynu ognahayba wuxuu ku salaysan yahay cuntooyinka antioxideka ee bacteriada la dagaalama ee germska la dagaalama ee magaranaysaa nadiifiya macdanta caloosha qabsinka iyo mindhicirkaba. waana lug buu ku leeyahay urta afka ayuu baabi'iyaa dadka. waxaa jira nafaskooda ama urta afkooda hadii jeeraale bacteriada dad baa xanjo u cuna oo dad baa wax ku rusheeyo oo wax ku buufiyo. laakiin afokaaduhu haddii aad maalin walba xabad cuntid isku arki maysid urka afka kasoo ura garatay.
sidaa darteed afukaaduhu waa treasure ama waa kens dadku aanay ogeyn. macnihiisuna afukaaduda waxay nagaga timi saan idin sheegnay Latin America. okay, geedka kaliya ee daqadka garanaysa balance gareeya antioxidant-ka ah maqaarka iyo jirka qurxinaya, maskaxda iyo nabadaadka controlaya, cuntadaada iyo miisaankaaga ilaaliya, indhaha iyo aragtidana nadiif garanaysa ay daaweynaya ilaalinayana. waxaan jolokoomada loo yaqaano blue eye blue waterka ama maya zarqa indhaha laga jeexo wuu ka ilaaliya qofka. dad badan oo isticmaala afukaadada oo muraayada qoraalka iyo aragtida iska dhigay ayaa buxuustu sheegaysa. marka saladka lagu daro ama salad lagu daro afukaadada nisbada ku jirta ee duhniga ah ama oilka ama faatka ah ama macnaha waxaan ka wadaayay 77% aynu soo sheegnay fitamiinada saddexda ah ee ku jira ayaa waxay ku milmaan duhunka wixii dihniya ama wixii faat ah. marka fitamiinku markiiba jirku u qaadanaya. marka waxa loo yaqaanaa faakahadan waxa loo yaqaanaa ama geedkan waxa loo yaqaanaa superfood. waxa loo yaqaanaa superfood uu ka awood weyn yahay geed kasta oo kale oo loo isticmaalo cunto ahaan. wiigi wax badan maaha. halkii wiig haddii aad 3 xabo ama aad 4 xabo cuntid noloshaada oo dhan dadka ka dacwoonaya lafaha, dadka ka dacwoonaya caloosha, dadka ka dacwoonaya caloosha, dadka ka dacwoonaya caloosha 3 jeer baan ku celinayaa caloosha, dadka ka dacwoonaya haddii ay cunaan ama ay cabaan casiirka afukaadaha wiigiiba 3 cisho. dadka heli kara macnaha dadku ma wada heli karaan laakiin dad heli kara baa jira. waxaan kula dardaarmaynaa dadka heli kara 3 cisho ama 4 cisho inay wiiga dhan inay 3 xabo oo magaranaysa ay cunaan afukaada ah ama ay casiirkeeda cabaan. haddii ay cabi karaan dailina it's okay, way fiican tahay. waxayna dareemayaan inay geedkani uu yahay superfood oo ah dawo kaamila mutakaamila oo cudurro badan daaweynaysa oo caloosha. waayo maxaynu inagu tarkiista ugu sameeynaa yani inaynu focus ku sameeyno caloosha, waayo hoyga cudurku waa caloosha. cudurka haddii caloosha laga daweeyo cudurka caloosha qofka calooshiisa haddii caafimaad qabo cudurradiisa kale waa la gaari karaa, waa la daweyn karaa. aad iyo aad baan idin salaamayaa. fideona share gareeya insha Allah faa'iidadu hayna wada gaadho. wassalaamu calaykum.